ergeyga qaramada midoobay oo ka hadlay kulan uu madaxweyne muuse biixi la qaatay iyo doorashooyinka somalilan ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaalida danjira james swan oo socdaal 2 maalmood qaatay ku soo gaadhay magaalada hargeysa ayaa ka hadlay kulan qasiga madaxtooyada somalilan kula yeeshay madaxweyne muuse biixi cabdi oo qaabilay ergeyga iyo wafdi ka kooban saraakiisha hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala gudaha somalilan danjira james swan iyo wafdigiisa oo salaasadii soo gaadhay dalka waxa ujeedada socdaalkiisa somalilan iyo waxyaabaha uu kala kulmay ku faahfaahiyey war saxaafadeed uu ergeygu soo saaray waxa uu danjiruhu caddeeyey inuu kulamo kala duwan oo saacada qaatay la yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda xubno ka mida ururada bulshada rayidka iyo guddiga doorashooyinka somalilan kuwaas oo sida uu sheegay ay ka wada hadleen qabsoomidda doorashada iyo barnaamijyada horumarineed ee hay-adaha qaramada midoobay ka fuliyaan somalilan danjira james swan waxa uu ugu horeyn madaxweynaha somalilan iyo golahiisa xukuumadda uga mahad celiyey qaabilaada loo sameeyey isaga iyo wafdigiisa oo kulan saacado qaatay ku yeeshay qasiga madaxtooyada isagoona xuseyn qodobada ugu muhiimsan ee ka wada hadleen madaxweynaha somalilan ugu horeysa doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada aniga iyo madaxweyne biixi waxaanu ka wada hadalnay doorashooyinka soo socda waxaan ku faraxsanahay inaan arko horumarka laga gaadhay doorashooyinka baarlamanka iyo deegaanka saaxiibada somalilan ee beesha caalamku waxay rajaynayaan doorasho wakhtigeeda ku qabsoontaa waxaanu soo dhoweynaynaa go-aanka guursidu ku xaqiijiyeen in doorashada la qaban doono 31 May james swan waxa uu sheegay in guddiga doorashooyinka ka go-an tahay qabsoomidda doorashada islamarkaana ay diyaariyeen dhammaan kaabayaasha farsamo ka midho dhalinta doorashadu ku xidhan tahay inkastoo uu xusay inay jiraan caqabado laga gudbay oo diiwaangelinta codbixiyayaashu ka mid tahay dhammaan tilmaamaha ka muuqda komishanka doorashooyinka qaranka ayaa ah in shaqada farsamo ee uu diyaargarowga doorashooyinku ay si horumarsan u socdaan diiwaangelinta codbixiyayaashu waxay ahayd qabad weyn laakiin waxaa loo fuliyey si dhammaystiran oo la wada gaadhsiiyey gobolada oo dhan sidaasi ayuu yidhi danjira swan james swan waxa uu daneeyayaasha gudaha ee doorashooyinka somalilan ugu baaqay hirgelinta hannaan doorasho oo daahfuran rajo fiican ka muujiyey in guddiga doorashooyinku hirgeliyaan doorasho daahfuran oo ku qabsoontaa xilligii loo mudeeyey waxaan rajaynayaa in shaqada wacan ee ay hayaan guddiga doorashooyinka ka soo baxdo doorasho midhodhalax dhammaadka bisha May sidaasi waxaa yidhi master swan ugu dambayntii waxa uu danjira james swan madaxweynaha iyo shacabka ku dhaqan magaalada hargeysa uga mahad celiyey soo dhoweynta isaga iyo wafdigiisa ku qaabileen waxaanu ku baaqay in si wada jira looga shaqeeyo oo loo taageero barnaamijyada horumarineed ee hay-adaha qaramada midoobay ka fuliyaan dalka